wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Asaaliya ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Boorama. madaxweyne ku-xigeenka ayaa safarkiisa waxa ku wehelinayay wasiir ku-xigeenno xildhibaano ka kala tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada iyo saraakiil dhinaca amniga ah iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. wafdigan ayaa markii uu soo gaaray magaalada Boorama waxa si ballaaran u soo dhaweeyay dadweyne tiro badan oo ay maanta mudnaanta koowaad lahaayeen ardayda dugsiyada dhigata kuwaasi oo lagu arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama arday aad u tiro badan oo lulaya calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caleemo qoyan oo ay ku soo dhaweynayaan madaxweyne ku-xigeenka. mar uu madaxweyne ku-xigeenku hotel rays ugu waramayay saxaafadda ayaa waxa uu ka waramay ujeedada safarkiisan oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid qaadan doona muddo 2 maalmood ah. dhammaan gobolada iyo dalka Soomaaliya oo dhan waxaan booqashada wax la xiriirtaa inaan u korgalno xaaladaha gobolka jira haddii abaar tahay haddii xagga maamulka tahay haddii maartay inaan xog wareysano odayaasha duqeydka gobolka jooga haddii tahay waxaan u nimidnay inaan kulay sidii shaqaha ee kormeer shaqo way hawshu badan tahay waxaan la tashan doonaa la kulmi doonaa hay'adaha kala duwan dawladda madax dhaqameedyada si aan u ogaano xaaladaha jira iyo wixii maartay ugu faa'iido ka taagan. si kastaba haatee booqashada madaxweyne ku-xigeenku ku yimid magaalada Boorama ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu ballaarnayd ee ay mas'uuliyiinta xukuumaddu ku yimaadaan magaalada Boorama. waxaana xusid mudan inay magaalada Boorama waqti xaadirkan ku sugan yihiin wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno ka kala tirsan 7 wasaaradood oo ah wasaaradaha jamhuuriyadda Soomaaliland agaasime ku-xigeenno la taliyayaal maareeyayaal iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga. waxaana aan meesha ka marnayn in culayska intan leega ay leeyihiin wafdigan maanta magaalada Boorama soo gaadhay arrinta ugu ballaaran ee la doonayo inuu xal kama dambaysa ka gaadho ay tahay xiisadaha dhinaca dhaqanka ee intuu dambaysaba ka aroosna gudaha magaalada Boorama. عبد الله علي يوسف هون كبر تي في مقالة بورما.